السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنا وناكسن داوديال ميل بادوكتان كوسو دوادا برنامج رؤية كباهين تي في أو حلقة نوكليات كداوتان شبكة باهين تي في قضب حساب بدن أياد مانتا برنامج كيجا كداود دونتان ويكمدين أسكر كترسن عيدمدا أميسوم ويسكود لي جودها مجلة مقدشو خير أو كرمر كوتجي تالدا إسرائيل يجوبك كله أو مهمة أو كيالا مجلة مقدشو أحمد مدوبي وهو بكدجس كوسمان يعيد مدى تابع سن دولة فدرال كسوماليا يقرش عصب أو كسعوت مجلة كسمايو وزير كعصب وزارة الجناعسية ومانتا لجو دارية حرونتا قولها الشعب كدب كلا فدق مانتا أيشان حبناها بارلمان كسوماليا يقوسس كسو بركعي دجانا دا السبيب يعانو لي وسو جاري دولت كمجلة مقدشو قضب بدني قضبك لو حسلا يعني دين كوكسو قد من دونا برنامج رؤية كباهين تي في ففهنا ayaa ka soo baxaysa toogasho ay isku geysteen ciidamo ka tirsan AMISOM oo maalintii Sabtida ka dhacday gudaha xarunta Xalane oo ah taliska ugu weyn ee ciidamada AMISOM askari ka tirsan ciidamada AMISOM iyo sargaal kormeero ahaa ayaa la sheegay in uu khilaaf iyo muran uu soo kala dhaxgalay waxaana taas ay keentay in askariga uu toogto sargaalka ay murmeen waxa sidoo kale la sheegay in askariga uu toogtay laba askari oo kale oo ka agdhaweyd goobta uu sargaalka ku toogtay askariga toogashada geystay ayaana ugu dambeyn isaga la sheegay in uu goobta isku dilay afayeen wadlay ciidamada Uganda oo lagu magacaabo Brig Richard ayaa xaqiijiyay in toogasho ay isku geysteen askar ka tirsan ciidamada AMISOM waxaana uu cadeeyay in aysan wali ogeyn sababta keentay toogashadaasi waxa uu sheegay afayeenka ciidamada Uganda in ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo waxa keenay in ay istoogtaan ciidamo ka tirsan Uganda oo howlgal nabad ilaalin u jooga Soomaaliya mana sheegin afayeenka magacyada askarta geeriyootay ciidamo ka tirsan AMISOM ayaa sidan oo kale horay waxa ay isugu dileen qaar kamid ah xeryaha ay ku leeyihiin gudaha Soomaaliya waxaana isku dhaca ciidamada la sheegayaa inuu ka dhasho khilaaf soo kala dhaxgala askartaasi خير أو كرمر كتجت تالدا إسرائيل يجوبا كلا ومهمة وكيالا مجلة مقدشو رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خير أي حالي كرمر أمني وحو كتجت تليس كقيبت جود بوليس كجبل كبنادر يزجسده أي كسوجيهن عيد مدى السوجي أمني عاصمة دا وحنا وبغضي حرونتا هاجستا يوليبا كجواب دا نمبر كسجال هل أو بوليسكو دوان أي كهول جليان سي شعب كوا يجسوا جديان حجها أي هلان howlwadeenada booliska ee u xil saaran shaqada xoogan isku xirka booliska iyo waliba shacabka xogta u soo gudbinaysa ayaa ra'iisul wasaaraha siiyay warbixin la xiriirta hanaanka uu shaqeynayo iyo wixii uu qabsoomay booliska wixii ka dambeeyay markii dhawaan la howlgeliyay nambarka 991 ra'iisul wasaaraha ayaa u sheegay saraakiisha booliska in ay wada shaqeynta booliska iyo waliba bulshada inteeda kale ay muhiim u yihiin sugidda amniga dalka nambarka gaabanna uu ka mid yahay wadooyinka ugu muhiimsan ee isku xira waxaana uu laamaha amniga uu kula dardaarmay in ay laba jibaaraan dadaalada lagu sugayo amniga dhanka kale ra'iisul wasaare Khayre ayaa booqday qaybo kamid ah goobaha ay bulshadu isugu timaado iyo waliba xarumo ganacsi waxaana uu kormeeray talada SWA bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah in waxaan fursad u helnay inuu ra'iisul wasaaruhu noo raaco howlgallada caadiga ah ee sugidda amniga ee ciidanka booliska oo hayo
darfaha magaalada waxaa kale oo fursad noo ahayd inuu ra'iisul wasaaruhu soo arko xarunta aan ugu talagalnay in shacabku ay kala xiriiraan dadweynaha ay kala xiriiraan ciidanka booliiska Soomaaliyeed lambarka 991 oo qof kasta muwaadin ah uu si bilaash u soo wici karo lambarkaas oo ugu talagalnay qofkii inuu sheego ma loo baahan xitaa magaciisa inuu sheego meel wax ka dhaceen wuxuu arkay iyo hadduu dhibaataysan yahay sidii loo kaalmayn lahaa gidigoodba kaasna fursad inoo ahayd inuu soo arko indhihiisa ku soo arko wixii macluumaad ah uu nala wadaago iyo saan anagu maaragtay aan howlgalayno taasina meesha ku jirtay inta kale tan waxay howlgallada caadiga ee lagu ku sugayno amniga magaalada ramadaanka insha Allah idinka ilaahay shacabkana waxaan ka codsanaynaa si hor ula shaqeyn jireen ciidanka inay ciidanka booliiska la shaqeeyaan kana faa'iideystaan hadeer lambarkana 991 ay ku soo sheegeen wax kasta oo dareen ah magacaaga lama rabo daarta magacaaga sheegin wixii dareen ay dib u keenay amnigaaga iyo xaafadaada iyo deegaankaaga inaad 991 soo wacdid waad la socodsiisay ciidanka booliiska si ay uga howlgalaan iyo wixii kale oo zaa'id ah oo indhaha ay qabtaan barnaamij jureedkii baahi TV ayaa daawanaysaan qaybihii dambe wasiirka cusub ee wasaaradda ganacsiga ayaa maanta lagu dhaariyay xarunta golaha shacabka kadib kala fadhigii maanta ay yeesheen waxa xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ka furmay kulanka guud ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya kulankan waxa shir gudoominaya kusimaha gudoomiyaha golaha shacabka ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad mudane Cabdulle Sheekh Ibraahim Muude sidoo kalena waxa soo xaadiray 143 xildhibaan kuwaasi oo xalay lagu wargeliyay inuu jiro maanta kulanka xildhibaanada golaha shacabka dhinaca kale wasiirka cusub ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Cali Xasan ayaa lagu dhaariyay kulanka guud ee golaha oo si toos ah maanta ugu dhacay xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa la sheegay in Kismaayo ka bilaabay kulamo uu la qaadanayo saraakiisha ammaanka ee maamulka Jubbaland gaar ahaan xubnaha dadka ugu dhow maamulkiisa saraakiil ka tirsan militariga magaalada Kismaayo ayaa warbaahinta u sheegay in saacadihii la soo dhaafay uu u yeeray dhowr sargaal iyo la taliyaal uu leeyahay oo dhanka ammaanka waxaana ay ka wada hadleen xaaladda magaalada Kismaayo iyo doorashada 2019 ee hoggaanka Jubbaland taas oo ka dhacaysa magaalada Kismaayo Axmed Madoobe ayaa saraakiisha uu la kulmay u sheegay in Kismaayo uu ka bilaabi doono qorshe hubka loogu qaadayo dhammaan ciidamada hubeysan ee taabacsan dawladda Soomaaliya iyo ciidamada kale ee ka tirsan maamulka Jubbaland ee ku dhow musharaxiinta qaar arrintan ayaa waxay u muuqataa beegsiga loo geesanayo dhammaan saraakiisha iyo mas'uuliyiinta ciidan ee loo arko in ay ka hor imaan karaan Axmed Madoobe kuwaasi oo aan loo fiirin doonin oo kaliya in dawladdu ay ka tirsan yihiin balse sidoo kale laga dhex raadin doono ciidamada iyo saraakiisha Jubbaland wararka kale ee ku soo dhacaya warqabadka baahi TV-na waxa kamid ah warbixinta guddiga ka soo baxaysa ayaad la xisaabtan loo dul darteen marka labadaas waa isku dul gudateen muhiimadda meesha taalo waxa weeye guddiga iyo wasaaraddu arrin principal ah ayay isku qabteen oo waa arrinkii Dr. Cilmi iyo waxa weeye wasiirku ay isku celinayeen waxa weeye deeqaha qaabka ay miisaaniyadda u soo gasho principally waxa weeyaan anagu ma iska soo alifan karna wixii sharci baa yaala sharci baa lagu maamulaa waxa weeye maaliyadda dalka anagu aqoon gaar ah uma lihi guddiga maaliyadda iyo wasaaradda iyo xisaabiyuhu ha isla soo fiiriyaan arrinkaas waxa weeye maadaama uu soo baxay waa in sharciga dalka u yaala hadda waxa uu arrintaas iyada ah ka qabo in la sheego weeye haddii aysan sharciga ku jirinna waxa weeye waa inay xeerkii miisaaniyadda ka dhex muuqataa oo ay ahaataa heshiis guddiga iyo wasaaraddu wada galeen deeqaha idin soo gala
qaabka aad u maamulaysaan waa sidaa iyo sidaa iyo sidaa waad ogtihiin qaabka loo soo geliyey saas awgeed waxa weeyaan wasaaradda iyo xafiiska xisaabiyaha guud iyo guddiga iyo dhammaantiinba warbixinta ugu dambaysa ee akhrinta saddexaad la keeni doono ha ahaato mid reflect garaynaysa jawaabihii su'aalihii meeshan laga soo jeediyey faahfaahinteeda hadduu ilaahay yidhaahdo ayadoo tafatiranna aad noo soo gudbin doontaan wax aad isla garanaysaan oo aad isla fahmi karaysaan inaad noo soo gudbisaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasaaradda waxa weeye xafiiska oo xisaabiyaha guud xildhibaanada sharafta leh iyo guddiguba waajibkiina si aad usoo gudateen arrinkanna marka dambe noo soo noqdaan doodooda sii wadi doonaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waqtigan barnaamij wareedkaad kala socoteen baahin TV oo idinkaga imaanaya studio TV-gu ku leeyahay Muqdisho waa naga intaa